السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan dhammaantiin idigu salaamayaa maqaamka iyo maamuuska aad meesha ku fadhidaan. salaan kadib waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed sanad guurada 6aad ee ka soo wareegatay midowgii gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed iyo aasaaskii jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee 1 Julaay 1960. waxaa sharaf weyn noo ah inaan xuskan maanta ku qabanayno magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug oo taariikh weyn ku leh dhaqdhaqaaqii xorriyadda iyo baadigoobkii dhismo qaran Soomaaliyeed. gobolka Mudug waa hoygii uu ka soo jeeday maskaxdii ka dambeysay SYL ee Yaasiin Ismaan. waa hoygii ra'iisul wasaarihii u horeeyay xilligii daakhiliyada ee Cabdullaahi Ciise. sidoo kale waa hoygii ra'iisul wasaarayaashii koowaad iyo labaad mudane Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo Cabdirasaaq Xasan Xuseen.
waa hooygii kuwii nafta isu huray ee cabdulaahi ciise iyo muuro iyo kuwo kaloo kale. waa hooygii ay ka soo jeedeen madaxdii horseeday heshiiska gaalkacyo kadib dagaalkii ahliga ahaa ee 93dii cabdulaahi yuusuf axmed iyo maxamed faarax caydi. waxaan fariin iyo warbixin u dirayaa halgamayaashii SYL. waxaan uga cudur daaranayaa inay raalli ka ahaadaan marxuumiinta waxa ay dhibsadaan. waxaa dumay qarannimadii, waxaa dumay midnimadii, waxaa dumay soomaalinimadii, waxaa dumay wadaniyadii, waxaa abuurmay kala irdhow, waxaa abuurmay isnac, waxaa abuurmay is-aamin la-aan, waxaa hoos u dhacay hankii iyo haybaddii ummadda soomaaliyeed, waxaa dumay noloshii shacabka soomaaliyeed, waxaa abuurmay qax iyo qaxooti, waxaa kordhay barakac iyo gaajo, waxaa samaysmay hogaamiye kooxeedyo, burcadbadeedyo iyo argagixiso. waxaa la yagleelay siyaasad hadafkeedu yahay hore ha u socon iyo ila meerayso. waxaa lala dagaalamay kala dambeyntii iyo isxaqdhowrkii. waxaa la dhiirigeliyey hannaan siyaasadeed oo mugdi ku sii riday midnimadii soomaaliya iyo xasiloonidii siyaasadeed oo ka hana qaada soomaaliya. waxaa sidoo kale fariin u dirayaa ubadkii halgamayaashii xorriyadda dhaliyey ee ku nool dhammaan daafaha dunida iyo soomaaliya. fariinteedu waxa weeye inay boorka ka jafaan dhaxalkii aabbayaashood, inay u istaagaan ilaalinta hantida qaaliga ahayd ee ay ka dhaxleen ee ahayd qaran soomaaliyeed oo mid ah, inay u turaan sooyaalkii qurxoonaha ee looga tegay. ma ahan in xasuustoodu noqoto taallooyin loo dhiso oo meel laga taago. xasuustoodu waa midnimadoo la ilaaliyo, qaranka oo turxaanta laga dhowro, iyo hagidda iyo hogaamin horseedi karta walaaltinimo, dowladnimo, midnimo iyo horumar. waxaan sidoo kale ku boorinayaa inaysan ka shaqayn wax dhaawici kara nabadda iyo midnimada. waxaa si gaar ah shacabka gobolka mudug iyo guud ahaan shacabka iyo dowladda puntland iyo galmudug ugu hambalyeynayaa dhaqdhaqaaqa nabadeed ee ka socda gobolka mudug, kaasoo aan rajaynayo in laga gaari doono looga gudbo siyaasadihii lagu ragaadiyey shacabka soomaaliyeed ee ku dumiyey qarankii soomaaliyeed, laguna dhaawacay xorriyaddii, taasoo laga soo minguuriyey gumaystihii oo ahayd qaybi oo xog. sirta aabbayaasheen u sahashay xorriyadda waxay ahayd markay garowsadeen inay meel iska dhigaan qabyaaladda oo ay noqdaan qolo qura, taasoo geysiisay in cabdulaahi ciise iyo muure nafta isku huraan. waxaa ilaahay mahadiisa in 60 sano kadib uu hifafaarahaas muuqdo. tusaale ahaan markii lagu jiray nabadeyntii deegaanka galbeedka gaalkacyo ee teerrage, odayaashii ka qayb galay oo ay ka mid ahaayeen senator cabdi cawaale qaydiid, genaraal gorod, wasiir dhabancad iyo xildhibaano puntland oo ay damceen dhallinyaro la soo marin habaabiyey inay dhibaato u geystaan madaxdaas, in xildhibaan xuseen axmed nuur iyo xildhibaan cabdiweli yuusuf ay si geesinimo leh uga hortageen, isuna dhigeen xabaddii ay la soo baxsanayeen dhallinyaradu. taasoo ilaahay mahaddiisa ay ka dhalatay shirkii nabadeed ee ka dhacay bandiiraday oo looga hadlay colaadda labada degaan. shirka maanta ka socda galdogob oo dhammaystirka iyo gogolxaar u ah dhammaan shirarka nabadda gobolka mudug ee lagu soo afjarayo colaadaha muddada dheer soo socday deegaanka. waxaa kaloo keentay kalsooni dib loogu furay jidadkii xirnaa ee magaalada gaalkacyo. waxay kaloo keentay heshiis iyo is-afgarad taariikhi ah oo dhex mara dowladda galmudug iyo puntland.
oo ay kala hogaaminayeen madaxweynayaasha labada dowladeed ee xubnaha ka dowladda federaalka. waxaan baa u dirayaa waxaan anigoo ka faa'iidaysanaya munaasabadda 60 sano guurada xorriyadda Soomaaliyeed baa u dirayaa dhammaan deegaanada colaadaha qorshaysan ka jiraan ee lagu burburinayo walaaltinimada iyo wadajirka inay ka waantoobaan kuna soo afmeeraan wada hadal iyo is-afgarad colaadaas. waxaan madaxda Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay si xilkasnimo ah iyo mas'uuliyad ku jirto u wajahaan xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee ragaadiyey midnimadii iyo wadajirkii Soomaaliyeed. waxaana si dalka loo samato bixiyo ku baaqayaa in doorashada 2021 ku dhacdo muddo xileedkeeda. waa in dalka laga joojiyo siyaasadda ku salaysan danaha gaarka ah ee keenaya jahwareerka iyo kala fogaanshaha ummadda Soomaaliyeed. ummadda Soomaaliyeed waxay Muqdisho siisay wixii ugu wanaagsanaa oo ah in magaalo madaxdii noqoto. sidoo kale waxay ku sharfeen inay yeelato maqaam iyada gaar u ah oo aysan inta kale ee magaalooyinka Soomaaliyeed la wadaagin. waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ugu baaqayaa inuu iska ilaaliyo inuu boor isku qarin oo uusan si xun u doonin oo shacabka walaalaha ah iyo xildhibaanadii fursadda uu madaxweynaha ku noqday siiyey uusan iska horkeenin. joojiyana falalka ragaadinaya dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed oo ay ugu horeyso farshilinta qabsoomidda doorashada dalka 2020-2021. sidoo kale waxaan hoggaanka kala duwan ee Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay ku kalsoomin indhasarcaad kasta oo keeni kara inaan dib uga noqono meesha aan maanta joogno oo waqti, maal iyo naf nooga soo baxday. waxaan soo dhoweynayaa baaqa ka soo baxay baarlamaanka Puntland 29 bishii 6 2020. taladooda ayaa ku shaqeynaya anoo ixtiraamaya hay-adaha dastuuriga ee Puntland. qodobkaasaan si fiican ugu celiyo waa sabcinayseena. waxaan soo dhoweynayaa baaqii ka soo baxay baarlamaanka Puntland 29 bishii 6 2020. taladooda ayaan ku shaqeynaya anoo tixgelinaya hay-adaha dastuuriga ee Puntland. ugu dambeyntii waxaan u mahadcelinayaa beesha caalamka oo juhdi iyo dadaal badan gelisay garab istaagga ummadda Soomaaliyeed sidii lagu heli lahaa xasilooni siyaasadeed, amni iyo mid dhaqaale. waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka gaar ahaan daneeyaasha Soomaaliya inay gacan ka geystaan sidii lagu badbaadin lahaa geedi socodka dhismaha dowladnimada Soomaaliya oo ay halis ka muuqato. aysan ku kalsoomin tillaabooyinka marin habaabinta ah ee madaxda dowladda federaalku ku dhaqmayso. waxaan mar labaad aan jeclahay fariintaydu inay gaarto cid walba oo Soomaaliya. waxaan maraynaa marxalad xasaasi ah. waxaan maraynaa marxalado xanuun badnaa oo waayaha mararka qaarkood aan soo marnay. waxaan rajaynayaa xafladdan maanta gaalkacyo lagu qabtay inay dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed iyo dhammaanteen ina geliso ruux cusub oo aan badbaadada dalka Soomaaliyeed ugu istaagin. inaan wixii aan u aragno inay khaldan yihiin aan caddayno waxay ka mid tahay u gargaarinta ummadda Soomaaliyeed iyadoo cidna lagu xumaynayn, cidna wax lagu yeelay. waxaan ugu baaqayaa siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo dadka Soomaaliyeed inay caadifadu aysan ka xoog badin. mujtamaca Soomaaliyeed waa dad aan kala maarmin, waa dad walaalo ah. waxaa tusaale u ah magaalada Gaalkacyo oo dadka Soomaaliyeed siduu u kala qaybsamay magaaladan ay u kala qaybsantay maantana wadooyinka isku furtay, gacmaha ishaysta, garowsada inay kala maarmayn muddo dheer kadib. waxaan dadka reer Gaalkacyo si gaara ugu boorinayaa inay arrintaas wax kasta oo meel kale ka dhaca inay tani dib u noqon. amniga gobolka Mudug waa lama taabtaan.
khilaafka guud ee Soomaaliya u dhaxayn kara ma reereynayno waxaan ku arkaynaa khilaaf siyaasi iyo mid dastuuri inuu yahay waana ka doodaynaa waana ka garnaqsanaynaa laakiin waxaan aad u rajaynayaa inaan la xurxuqin caadifada qabyaaladda oo runtii waxa ay dumiso ay adag tahay in la soo kalo waxaan rajaynayaa madaxda dowladda federaalku inuu caqligoodu uu soo noqdo waxaan u rajaynayaa guddoonka labada aqal iyo baarlamaanka xubnihiisa labada aqal inay si miyir qabta ay u dhaqmaan hifafaalaha hadda socda waxaad moodaa in la baabi'inayo aqalkii sare in la baabi'inayo federaalismkii in la maroorsanayo taladii dalka waa u yara eg tahay wixii dimuqraadiyaddii Soomaaliya 69kii ugu majeexay waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed god laba mar lagama qaninaa yiri inaysan dib dambe ugu dhicin khalad laakiin khaladaadka dowlad dhiska ee socday ee la tacaala waan rajaynayaa inay wax walba hagaagaan ay meel wanaagsan maraan waxaan u rajaynayaa mujtamaca Soomaaliyeed guul waxaan u rajaynayaa in ay ka kabtaan inkastoo maalin farxadeed tahay laakiin waan qirayaa caawa 60 sano kadib inay murugo naga muuqato waana xaqiiqo jirta waana waxaan isu geysanay waana waxaan u baahannahay inaan si midaysan uga baxno midnimada iyo dowladnimada iyo horumarka waa inaan si midaysan uga shaqeynaa waxaan bulshada reer Puntland si gaar ah ugu baraarujinayaa inaan la isku khaldin dhismaha iyo horumarka iyo shaqada dowladnimo ee Puntland dhexdeeda laga wado iyo geedi socodka siyaasadeed ee dalka Soomaaliya guud ahaan laga wado waxaan ballan qaadaynaa inay isaga kaalay khaldamin waxaan xoogga saari doonaa dhismaha ciidanka adkeynta nabadgelyada midnimada bulshada reer Puntland horumarinta nidaamka siyaasadeed ee axsaabta badan iyo dhinaca dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo aan rajaynayno inay wax ka bedeli doonaan nolosha iyo barwaaqada bulshada reer Puntland dhammaantiin guulaysta Soomaali meel kasta ay joogto ha guulaysato waxaan u rajaynayaa horumar waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala aafooyinka iyo dhibaatooyinka haya inuu ilaahay ka sabab ka bixiyo inay noqdaan kuwo dantooda garta kuwo isu tanaasula kuwo si saxa u fiiriyo xaaladda dhabta ay jirta aad baan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu